afgaabnaamtu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal kusoo dhowaada muuqaal aan uga hadlayno afgaabnimadu. intaanan muuqaalkeena u gudagelin waxaan iiga codsanaynaa inaad subscribe aad dhaadaan qambareerkana aad furutaan si aad u noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ee muuqaalkeena xigo. mahadsanid. afgaabnimada waa afka qaladan loo yaqaano introversion. ma ahan cudur ama cilad u baahan in la daweeyo, waa dabeecad ka mid ah dabeecadaha ilaahay ku abuuray bini'aadanka, laakiin dad badan aysan aqoon u lahayn fahmidda iyo la dhaqanka dadka leh dabeecadan. sidaas darteed waxaan si kooban uga hadli doonaa sida aad ku garan lahayd dabciyada dadkan iyo qaabka ugu habboon ee aad ula dhaqmi lahayd iyo faa'iidada ku jirto la saaxiibkooda ama nolol la wadaagistooda. waa maxay dabciga qofka afka gaaban? si loo fahmo dabciyada dadka kala duwan waxaa muhiim ah in la fahmo qaabka ay u fekeraan dadkaas ama maskaxdooda u shaqayso. haddii aad fahantid qaabka ay u fekeraan dabciyadooda, waad fahmi kartaa dadkan loo yaqaano introverts. markay wax la kulmaan islamarkiiba maskaxda go-aan ma qaadato, waa in waxaas ay maqleen ama ay arkeen la marsiiyo qaybta xusuusta maskaxda, kadibna la marsiiyo qaybta qorshaynta maskaxda. kadib ayuu qofka falceliyaa, baynama dadka lidkooda ah aysan intaas marin oo wixii la weydiiyo ama ay la kulmaan ay islamarkiiba ka falceliyaan. sidaa darteed farqiga labadan qof u dhexeeya waxaad ka fahmi kartaa jawaabahooda. qofka afka gaaban ma hadal badno, wuuna ka fiirsadaa intuusan hadlin. hadday xusuustiisa soo qabato wax la xiriira hadalka lagu yiri ama wuxuu arkay wuxuu falcelintiisa ku saleeyaa xasuustaas, kadibna qaabkii ugu habboon oo isagu isleeyahay uga jawaab ee maskaxda uga jawaabtaa. sidaa darteed mar walba jawaabta uu bixinayo isku mid ma ahan, waana sababta ay u necab yihiin in su-aal lagu kadiyo iyo in la ogaado qaabka ay u fekerayaan. telefoonada horey ugama qabtaan ilaa inay og yihiin sababta aad u soo wacayso mooye, waxayna ka doorbidaan inay qoraal kugula soo xiriiraan maadaama ay helayaan waqti ay ku fekeri karaan. haddii aadan ka warhaynin dabcigooda waad dhibsanaysaa, iyaguna way ku dhibsan karaan. inkastoo markaad talo ka heshid aad la yaabaysid xikmadda ku dheehan talooyinkooda, ileen waa wax maanta dhan laga soo fikirayay oo meelo badan laga eegay. waxaa intaas sii dheer in fikirkaas iyo falanqayntaas ay u baahan tahay meel aan buuq lahayn oo degan, waana sababta keentay inay ka helaan kelinimada aadna u necab yihiin buuqa iyo fagaaraha bulshadu isugu timaado. haddii lagu qasbana inay tagaan xafladaha, waxay la soo laabtaan diiqad iyo madax xanuun, waxayna xiiseeyaan howlaha badanaa la qabto markii keli layahay sida qorista, farshaxanka, injineernimada, wax alifida iyo wixii la mid a. sidaa awgeed dadka howlahaas ku takhasusay badankood waa dad dabcigan afgaabnimada leh, sababtoo ah markay keli yihiin ayuu wax soo saarkooda badan yahay. markay shaqo ku jirin waxay xiiseeyaan wax akhrista, wax daawashada, isticmaalka kombiyuuteraadka, xiriirka internetka, xool raaca iyo kalluumaysiga. sidee loola dhaqmaa dadka dabcigan leh? si aad u ogaatid qaabka ugu habboon ee dadkan kula dhaqmi lahayd, waa inaad iska ilaalisaa qaladaadka badanaa bulshadu ka aaminsan tahay, sida inaad si dhaqso isku barataan oo ku furfurmo oo kalsooni timaado waqti ayay qaadataa. laakiin markaad kalsooni ka hesho dadka dabcigan leh, si fiican ayaa la isku fahmaa, wayna ku hagarbaxayaan. laakiin haddii aad kalsoonidaas ku ciyaartid, waxaa laga yaabaa in xiriirka ku jiraan oo aadan dib dambe kula hadlin, wayna ku adag tahay in mar kale ay ku aaminaan. waxaa kaloo dabciga lagu qaldaa xishoodka, laakiin kelinimada ayay xiiseeyaan keliya, wayna ka fogaadaan meelaha bulshadu ku badan tahay. laakiin qofka xishoodka badan uu ka cabsadaa bulshada iyo isu soo baxa meel fagaare ahna kama hadli karo. laakiin dadka afka gaaban way ka hadli karaan meel la wada joogo, laakiin waa inay kusoo talagalaan oo ay kasoo baarandegaan. hadalkoodana ma badno, in hadalka kadib su-aalo la weydiiyo ma jeclo. waxaa kaloo dabcigan lagu qaldaa niyadjabka iyo murugada. dadka afka gaaban ma ahan dad niyad jabsan, inkastoo ay u muuqdaan dad xanaaqsan maadaama aysan hadal badnayn. faraka ciyaarkan iyo faduuleyntana ay aad u necab yihiin, laakiin haddii aad isku kalsoon tihiin way kaa qoslisiin karaan, wayna shactireeyaan. waxaa kaloo dabcigan lagu qaldaa isla weynida, sababtoo ah maadaama ay necab yihiin hadalka badan, booqashada kediska ah, ay xiiseeyaan la sheekaysiga dadka waaweyn
weyn iyo ka baaqashada martiqaadka in loo arko inay kibir badan yihiin oo ay dadka iskala weyn yihiin. taasina waa qalad badana lagu dhaco. waxaa kaloo dadkan loo maleeyaa inay fahmad yar yihiin markay shaqo ama waxbarasho ku cusub yihiin, sababtuna waa culays dhinaca la qabsashada ah. laakiin markay la qabsadaan aad ay ugu fiican yihiin shaqooyinkooda, waana dad si dhaqso ah loo dalacsiiyo. dadka ay u shaqeeyaan way ka helaan dadka noocan ah maadaama wax shaqada ka baxsan aysan iskugu imaanayn. waxaa kaloo dadkan lagu qaldaa inay yihiin dad mahadsan maadaama ay yihiin dad ku dheereeya fikirka iyo khayaalka, badana gees ayay ugu baxaan dadka ay ku dhex jiraan. tusaale ahaan, hadday gaari soo raacaan ma jeclo inay kuraasta dhexe fariistaan, dhinacyada ayay jecel yihiin, weliba hadday daaqada ku aadan tahay ama kursiga hore ee shirka. waxaa kaloo dadkan loo maleeyaa inay caajis badan yihiin, sababtoo ah markay dad la joogaan ma lahan firfircooni muuqda oo maskaxda ay aad ugu shaqaysiiyaan. waxaa kaloo dadkan lagu qaldaa inay yihiin dad aan jeclayn mutadawacanimada ama hogaaminta. taasina waa qalad kale, sababtoo ah ma jecla inay isa soo sharaxaan ama soo muuqdaan. lagama yaabo haddii su-aal la weydiiyo inay dhaqso farta taagaan ilaa inay iyaga farta lagu fiiqo mooye. haddii howl u baahan hogaamin loo xilsaaro way ku fiican yihiin inay dadka isku wadaan, go-aamadoodana aysan badana ku soo laaban. waxaa kaloo dadkan lagu tilmaamaa dulqaad la-aan, sababtoo ah waxay necab yihiin wax sugidda, waxayna jecel yihiin wax walba waqtigii ay filayeen inay ku helaan. tusaale, haddii aad la balantid oo aad ku soo dahdid aad ayay u dhibsadaan, laakiin howlaha ay hayaan iyo wixii dhibaato ah ee soo wajaha way u dulqaadan karaan. waxaa kaloo dadkan lagu tilmaamaa xagjirnimo, qalafsanaan iyo ad adayg, sababtoo ah ma jecla dadkan inay xafladaha tagaan, sawaxanka iyo muusigada, balwada, fadhi ku-dirirka, siyaasadda iyo ka qaybgalkeedaba. sidaa darteed waxaa loogu yeeraa magacyo ay ka mid yihiin suufi iyo wixii la mid ah. faa'iidada la saaxiibka dadka dabcigan leh, waxaad ka heli kartaa talooyin wax ku ola, khaasatan markaad rabto inaad gaarto go-aan kugu adag, sababtoo ah waa dad ku dheereeyo falanqaynta. maadaama wax walba ay sameeyaan ay jecel yihiin inay ka fekeraan ayna sii qorsheeyaan, iyagoo si dhaqso u dareemi karo waxyaabo badana aan ku muuqan sida dhaqanka qofka iyo xaaladda aad ku dhaqaaqi rabtid. siday u necab yihiin in loogu xadgudbo, lagama yaabo inay ku dulmiyaan ama wejiga ku bedelaan ama dabci aadan ku aqoon inay kula soo baxaan. haddii aad kalsooni isku qabtaan, waa dad aan sirta faafin maadaama ay iyagu aysan jeclaan in sirtooda la ogaado. xitaa qorshahooda mustaqbalka in laga hordhaco oo la ogaado ma jeclo. waa dad waqti ku heli karo hadday shaqo aadaan ama iskuul aadaan. markay howshooda soo dhammaystaan, lagama yaabo in meel aan guriga ahayn ku leexdaan ilaa inay dan qasab ah ku soo baxda mooye. waa dad aan buuqa jecleen iyo isqabqabsiga, waxayna ka doorbidaan inay ka aamusa. haddii adigana sidaa aad tahay, waad isdabci keenaysaan. qiimo uma yeelaan waxa dadka kale ay ka aaminsan yihiin, iyaguna kama helaan falanqaynta dabciyada dadka kale, muuqaalka iyo lebiska dadka kale. waxaa muhiim u ah siday iyagu isku arkaan ama ku faraxsan yihiin. tusaale ahaan, dharka ay xiran yihiin kama fiiriyaan dhaldhalaalka iyo soo jiidashada dadka kale, waxay ka fiiriyaan inay iyagu ku faraxsan yihiin, raaxana ku dareemayaan. haddii aad isku dhacdaan, lagama yaabo inuu kula tirsado. haddii ay dood idin dhex marto oo aad kala ra'y duwan tihiin, lagama yaabo inuu ku cayo ama kugu xadgudbo. waa dad jecel inay ku dhegaystaan, waxayna xiiseeyaan in aad u shaqaysid. haddii ay dhibaato ku haysato, waa dad ay habboon tahay in aad la sheekaysatid, sababtoo ah way ku dhegaysanayaan, talena waad ka helaysaa. hadalkaagan badana lama wadaagi doonaan qof kale. waxaa dadka isku taxluujiya inay isku filnaadaan, ma jeclo inay culays saaraan dadka kale. hadday xanuunsadaan, ma sheegaan xanuunkooda, waxay aaminsan yihiin inay wax kasta xalisan karaan. marka haddii aad tahay qof neceb calaacalka iyo waxweydiinta, lagama yaabo dadka dabeecadahan leh inay isku dhacdaan. waa dad saaxiibadooda iyagu doorto ee aan loo doorin, aadna u jecel inay helaan dad fahansan dabcigooda. waa dad si sahlan loogu farxin karo, uma baahnid
inaad isdhiibtid si aad uga farxisid. Uma baahnid inaad maqaayad geysid ama hotel. waxaa kugu filan inaad u soo hadiyeysid buug xiiso leh ama meel cidla ah inaad wada fadhiisataan oo aad sheekaysatiin. waa dad neceb isku dirka, beenta, xanta iyo inay dadka u kala warqaadaan. sidaa darteed inay ku xantaan lagama yaabo ilaa inuu leeyahay saaxiib khaas ah oo isagoo kale mooye. waxyaabaha ugu muhiimsan ay saaxiibka ku doortaan waa inuusan beenlow ahayn ama isdabamaris aqoonin. haddii ay intaas kugu arkaan waxay dareemayaan inaanan lagugu kalsoonaan karin, go-aan hoosena kaa qaataan iyagoo aan kuu sheegin. saas ay tahayna waxay jecel yihiin inay nolosha la wadaagaan qof furfuran oo bulsho ah, laakiin dabcigooda fahmi karo. haddii labadaas qof is helaan way dhib badan tahay in la kala dhexgalo. dadkuna way la yaabaan oo waxay yidhaahdaan maxaa labadan isku keenay, sidaasi isku fahmeen. muuqaalkan wuxuu quseeyaa dadka isku arkay dabeecadahan oo idil. haddii aad isku aragtay qayb ka mid ah dabeecadaha, waxaad gelaysaa kooxda loo yaqaano ambivert. haddii aad leedahay dabeecadahan lidkood ama muuqaalkan aad dhibsatay, waxaad gelaysaa kooxda extrovert. ugu dambeyn, biniaadamku maxad celin gaara. Somali Medical Forums. fadlan haddaad ku cusub tahay rajada iyo maanta, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe aad dhahdaan, gambaleelkan aad furataan si aad u noqotaan daawadayaasha ugu horeeyo ee muuqaalada aan soo gelino barteena rajada iyo maanta. mahadsanid. isma dhaafine. amaana.